haddii hami ganacsi idinku jiro talada inaan siinaya waxay tahay daacadnimada qiimo la siista ma jirto hadalka ogaada daacadnimada qofka daacadnimadiis ma jirto lacag inta la soo qaadaldo daacad baan waxaan siinayaa intaanoo lacaga businesska base waxa oo inuu qofku daacad yahay wax kastoo la qabanayo daacadnimadu waxbay ku jirtaa laakiin businesska mushaarakada markay timaado dadku wax wadaagaan oo wax isku darsadaan wax kasta oo si daacad looga shaqeeyaa waxay gaaraan booskooda marka waxa loo baahan yahay businesska markaad galayso inaad daacadnimona ay ka tahay haddaad dad wax isku darsataan haddaad keligaa tahay waxyaabaha ka mamnuuca waxa ka mid ah inaan lagu dhaaran businesska khiyaar baad leedahay waxaan anigu siinayaa qiimahaas ii joogaa inaad tiraahdi laakiin qofkan wallahi intaasan ka soo baxshay xaaraan calayk looma baahna waxaan anu hadda waxaan aaminsanahay marka bosishka fiirsho in qofka marka uu business ka shaqeyso oo ilaahay ku guuleeyo maba aamini karo wax kale inuu ka shaqeeyo ninbaa wuxuu ugu lahaa maalin xaasa anigu dowladdan ka shaqeeyaa buu maba aamini karo haddaan mishaari soo baxin waxaana sheegaysid islaan imaan doonto oo dambiil wadato wax iga gadanaysa maba aamini karo buu yidhi anigu waa inay bishu markay dhammaato akoonkayga wax ku soo dhacaan anna waxaan taagnahay warniyo maba aamini karaba inaan subax walba iraado waxaan sugayaa inay ku soo dhacdo muxuu ahaa akoonkayga mishaari intaa dhan marka tala saarshada xaqa businessku leeyahay laga bixiyo dadka oo loo dhibriyo waxyaabaha cajiibka waxa waaye business intaa hore ka gashid aad 100% kala soo boodaysid ma jiro markii مثلا businessyada yararka marka laga hadlayo marka adigii furatay haddana waqtigaagii gelisay waqtigaaga qiimo lahaa waqtigaaga gelisay isla markaana soo survive garaysay 90% waxay u badan tahay inuu miro dhalo